بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan oo aan meel kasta adduunka joogtaan walaalaha sharafta leh ku soo dhawaada barnaamijka arrimaha qoyska. Maanta waxaan uga hadli doonaa mowduucan ugu magac daray maxaa ka hortaagan guurkaada labaad. Marka aad maqashid ciwaankan wax laga yaabaa inaad istiraahdo maanta Naasir Cadaad muxuu ka hadlayaa mowduuca soo wadana muxuu yahay. barnaamijkani wuxuu si guud ugu socdaa ragga iyo dumarka, si gaar ahna wuxuu ugu socdaa gabdhaha ayuu ugu socdaa ama hablaha Soomaaliyeed ee guurka hore u soo maray isla markaana ninkii hore ay kala tageen. walaalayaal idinkama qarsoono dhibaatooyinka aan maqlayno in aan maqlayno ilmo la faraxumeeyey. ilmahaas yaa faraxumeeyey qofka dadka ugu dhow. waxaan ka hadli doonaa maanta barnaamijka ah gabadha ninkii hore kala tageen caruurna leh damacsanna guur labaad inay samayso maxaa la habboon, maxayse tallaabooyinka fiican iyo talooyinka fiican ee la rabo inay qaadato go'aamada fiican si ay ilmaheeda u badbaadiso nafteedana u badbaadiso muxuu yahay. walaalayaal dumarku horta guud ahaan way iska dhiban yihiin, meel walba lagu dhibaa. kii horoo qabay kan dambe oo imaan doona walaalkeed gabadhiyo dhiman baa xataa laga yaabaa in mataqaanaa dhibta madaxa laga saaro oo loo madax salaaxo ayadoon xal laga gaarin. gabdho badan oo la dilay oo noloshii loo galaaftay oo ay dileen niman mujrimiin ahna way jiraan, way buuxaan. walaalayaal baraha bulshada ayaa arrintani horta aad iyo aad u buunbuunisay, waana arrin horey u jirtay. waagii hore lama maqli jirin, waxa laga yaabaa tuulo hebel inay ka dhacdo, hadday dhacda weligeed bay dhici jirtay in ilmo la faraxumeeyo. laakiin maanta waxaa cod u yeelay oo kor u qaaday oo arrintan dadka maqashiyey waa baraha bulshada. arrintaasi waxay keentay inay cabsi dadka ku abuurto, raggii oo dhan laga shakiyo oo gabar walba la yidhaahda ragga iska ilaaliya. raggu waa wada sidaas. xaqiiqatan raggu ma wada xuma, way jiraan dad xun, rag xun way jiraan, weli dad xanuunsan weeye. qofka ilmo yar oo sabi ah 3 jir ah ayaan dhowda maqlaysin dhobley magaalada la yiraahdo ama libooya Soomaaliya loo yaqaano, waxa ka dhacay kufsi. nin baa wuxuu kufsaday gabadh yar oo 3 jir ah, waa inan yar oo 3 jir ah ayuu kufsaday. runtii maxkamad ayaa la saaray, ninkaas waa la toogtay. gabadhina kufsiga ayay u dhimatay, ninkiina waa la toogtay. waa arrin fiican. qofka ku xadgudba ilmo yar abaalmarin kale ma lahan, waa in maxkamad la keenaa, sharciga shareecada islaamkana la waafajiyaa, sida ugu fiicanna la sameeyaa. laakiin waxaa jira rag badan oo fiican oo runtii ilmahan aysan dhalin uga fiican aabihii dhalay. waana arrin waaqica, qof walba oo mataqaanaa caqli leh wuu arkay. anigu dad badan waa arkay oo mataqaanaa aabahood labaad kii hooyadood labaad ay guursatay ka jecel aabahood. marka arrinta lama oran karo raggu waa wada xun yihiin, ragguna waa wada fiican yihiin. aan u soo laabto mowduuca, maxaa sabab u ah in gabadhu ay mataqaanaa soo xaraysato ama guriga keensato ama ay aroosto magaca rabtidba u yeela nin aad iyo aad u akhlaaq xun. horta ko waxa keena degdega. gabadha waxa laga yaabaa marka la furo inuu ficiltan galo, inay istiraahdo wallahi ninkii intuusan kaa hor guursanin adiga guurso. waxa laga yaabaa inay isku qaado meelo badan, waxa laga yaabaa inay stress isku rido. walaashii dhegeyso, ilmo yar ayaa haysataa, waqti ayaa haysataa, ujeedadii guurkana waad haysataa. alxamdulilah, ilaahay ilmuu ku siiyey. waxaa loo baahan yahay inaad isdejisid, inaad mataqaana ka fiirsatid qofka aad nolosha la wadaagaysid. ha guursanin qof adiga ku dhibaya, naftaadana dhibaya. marka haddii aad adigu dad kale wax ku qiimaysid iyo nin kale oo aad kala tagteen aad tartan kula jirtid, shaki kuma jiro inaad ku kadsoomi kartid ama aad mataqaana gacanta u geli kartid qof xun. marka waxaa loo baahan yahay inaad ka fiirsatid oo aad mataqaanaa caqligaada dejisid. qofkan aad ku xulatid waxyaalo fara badan oo aad isleedahay wallahi waa macquul, waa sax, qof lahuba ma jiro. qofkan aad maanta la heshiisay beri wuu kugu xumaan karaa. talada labaad waxay tahay inaad ilmahaada kala hadashid. ilmaha haba yaraadaan in loo sheego oo la yidhaahdo haddii wax noocaasoo kale lagugu sameeyo, haddii halkaa lagaa taabto ii sheeg. in macnaha aad ilmaha kala hadashid dhibaatada noocan oo kale ah. annaga waalidiinta Soomaalida dhibaatada haysata waxa weeye ilmahooda mawaadiicda noocan oo kale kalama hadlaan. dhibaatadana waxa weeye waa la isdhiganayaa. marka maxaa keenay, maxay tahay sababta aad ilmahaada ogala hadli karin dhibaatooyinka noocan oo kale oo jira? waa qasab inaad ilmahaada la hadashid, waa inaad u sheegtaa inay adduunka isbedelay, inay arrintu ay mataqaanaa khatar tahay. ilmihii waa inay ku dhiiranaan karaan inay sheegaan. walaalayaal waxaa dhacday oo aniga liiga sheekeeyo waa qisooyin oo wadankii waa hore ka dhacay. yacni gabar baa waxay lahayd mataqaanaa guri hore soo martay, ilmay dhashay, nin kale guursatay. ninkaasi ayaa wuxuu iska isticmaali jiray oo fara xumayn jiray gabar yar uusan dhalin
oo ninkii hore dhalay. gabadhii uur bay yeelataa la yidhi. markii weynaatay waa la weydiiyey yaa ku ureeyey adeer. waa waddankii waxaasi ay shekada ka dhacday. marka arrintani waa arrin dhacda. waxay dumarkuna kulligood waxay ku wada jiraan khatar. hadda sheekadii way dhaaftay, wiilashii ayaa la faro xumaynaya walciyaadu billaah. arrintu waxay maraysaa arrin khatar ah. marka hooyada caqliga leh waa hooyada ka fikirta nafteeda iyo ilmaheeda. waagii hore aad mataqaanaa dhallinyarada ahayd oo aadan ilmo lahayn, markaas meesha rabto waad isku qaadi kartay. laakiin hadda waxaad mas-uul ka tahay caruur ayaad mas-uul ka tahay. saas darteed waxaa loo baahan yahay inaad ka fiirsatid oo aadan degdegin, dhibaatadana aad caruurtaada ka ilaashatid oo adiga naftaada ka ilaashatid. walidaalika ilaahi subxaanahu watacaala yani marka ay labada qof isku dhacaan oo kala tagaan wuxuu leeyahay wabucuulatuhunna axaqu biraddihinna fi dalika. raggoodii hore ayaa u xaqle inay soo ceshtaan. waxaan talada ku bixinayaa badanaa marka la iskhilaafo waxaa la isku khilaafaa waxyaalo yaryar oo waxyaalo laga heshiin karo. marka intaadan ninkaada iska furin oo aadan la dagaalamin oo aadan bannaanka dhigin, waxay ku qurux badan tahay inaad isku daydid khilaafka inaad xallin kartid. haddii ka waran adoo dhib ka cararaysid, dhib ka sii weyn aad qoorta gashatid, waa arrin aad iyo aad u dhib badan. badanaana dadka iskhilaafa waxyaalo yaryar oo la xallin karo oo mataqaana xal laga gaari karo ayaa laga yaabaa reerka in lagu burwariyo. sababtaan waxaa keenaysa kibru nafsi wax la yidhahda, isla weyni. ma anigu saa leeyahay, ma anigu waxaa laga yaabaa waxaan waxba ahayn in la buunbuuniyo balaayo laga dhigo uu reerkii sidaa ku burburo. marka waxaa dhici karta ninkaadii hore aad iska furtay inuu kaaga khayr badan yahay, uuna kaaga khayr badan yahay dabcan, oo waa ilmahaada aabbahood, waa qof aad noloshiis la soo wadaagteen, waa qof aad taqaanid intaad qof cusub baran lahayd oo dhibaato la kulmi lahayd. haddaba taladayda waxay tahay haddii la xallin karo khilaafaadka isku haysateen oo ay tahay wax sahlan, ilmahaada aabbahood ayaa kaaga xaq mudan intaad ilmahaada usoo xarayn lahayd qof kale oo laga yaabo inuu dhibaato u geysto. dhinaca kale anigu aragtidan yani dad iga aragti duwan way jiraan, laakiin an waxaan qabaa dadka qaarkood waxay qabaan oo talooyinkay soo jeedeen ka mid ah inaad sugtid inta ilmahaada kaaga korayaan oo ay wax kala garanayaan oo hadhowta hatii haddii dhibaato la geysto loo ay sheegi karaan. laakiin taasi waxay keentaa yani waxay keentaa inuu gaab weyn u dhexeeyo ama caqabad farqi weyn u dhexeeyo oo ilmihii hadhowtii ay la jaan qaadi waayaan qof cusub oo guriga kusoo biiray. hadda ka hor qise aan ka sheekeeyaa jirta. gabar baa waxay lahayd 3 caruur ah. waxay guursatay, caruurteedii ayaa weynaaday. wiilkeeda waa wiil weyn oo 12 jir ah 17 jir ah. gabadhii ilaahay wuxuu qadaray inay nin kala guursato, ninkii uu guriga la soo dego. marka waxaa dhacday wiilkii ayaa diiday ninkan. waana wiil oo 12 jir ah oo hadda soo kacay oo murqaystay. marka nafta wuxuu iskugu keenay ninkii mar walba uu maagaa musqusha markuu galo kusoo garaaca gawgawgaw furfur musqusha loo baahan yahay. aakhirkii wiilkii mataqaanaa biraqaad ayuu bilaabay. wiilkii iyo ninkii ayaaba waxay khatar noqdeen inay qoorta isla galaan. ninkii ayaa boorsadiisa qaatay, wuu carab. xaajadii wacdi maxaa dhacay? meesha ma ku noolaan karu yiri, ninkan waa idilaya ma garat. marka haddii aad adigana dee waqti badan ilmahaada u dhexeeyaan iyo guurkaada waxa laga yaabaa dhowti inay aqbali kari waayaan inay nin cusub guriga yimaado. waxaa kaloo fiican inaad ilmahaada kala hadashid haddaad guur jarabtid. hadday weynaadeen oo wax fahmayaan inaad u sharaxdid oo u sheegtay oo ku tirahdid aniga hooyo intaas ayna soo koriyey, waxaa la gaaray xilligii aan nolosheeda ku raaxaysan lahaa, qof kale nolosha la wadaagi lahaa, inaan guursado ayaan rabaa. ilmaha lalama tashto, waxba looma sheego. markaasa waxaa la rabaa sidaan hore usoo sheegnay inaad ilmahaada kala hadashid, ku baraarujisid inay dhibaatooyin jiraan, inay waxyaalo dhici karaan, inay is ilaaliyaan. haddii ay wax khaldan arkaanna ay mar walba la socodsiiyaan. runtii yani waan dareemi karaa aad bay u adag tahay. ilmihii sidaan uga tegi karaa qofaan ka shakisanahay, raggiina dhibaata haysata. marka xalka muxuu yahay? waa in la isweydiiyaa moogta. xalku waxa weeye horta in ilaahay subxaana watacaala laga cabsado. ilaahay subxaana watacaala wuu xarimay, wuxuuna ka dhigay xaaraan maqtaca in aad haweysatid yani ilmahaada. hataa waxa laga hadlaya moogtahay waagii hore jaahiliyada waxa laga yaabaa islaamka ka hor inaysan waxanba kala lahayn, laakiin islaamka ilaahay subxaana watacaala qur'aan ayuu kusoo dejiyey. suuratu nisa aayaddii ku jirtay حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم
وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يعني هوينكي aad qabteen oo aad guursateen ilmaha ay dhaleen gabdhihi ay dhaleen oo haweenkaas aad u galmooteen, yani mar haddii ay galmo meesha timaado oo labadii qof mataqaanaa isguursatay, ilmahaasi markaa ninkaasi uma banaana inuu mataqaanaa ilmahaasi guursado, guur iska dhaafa inuu haweysto, inuu mataqaanaa yani hunguri ka galo uma banaano. waa xaaraan maqtaca. ilaahi subxaanahu watacaala ayaa naga xaaraantimi yeelay. caqliga wanaagsan ayay xaaraan ku tahay. waxaa kaloo jirta dhibaato kale oo aan rabo inaan baraarujiyo. gabadhii markay ninkeeda kala tagaan waxaa laga yaabaa inay iska dhalinyarayso, iska xafladayso, ilmaheedii bay kaxinaysaa, xaafad kale ayay geenaysaa, dadaan la aqoonin ayay uga tegaysaa, warka ma hayso. taasi naftirkeeda ilmahaadii khatar ayay u leedahay. hooyada caqliga leh waa midda ilmaheeda ilaashata. waad garanaysaan digaaga ama shimbiraha ama xayawaanka ilmaha markuu dhalo wuu ilaashadaa, looma soo dhowaan karo, wuu kaa celinaya. shimbiraha yaryar ukumaha markay ku fadhiyaan haddaad u timaadid ayadoo intaa la eg oo yar ayay kula dagaalamaysaa, ugu yaraan way kugu qaylinaysaa. marka dumar waxaa jira runtii guurka xabsi u arka. markii guriga burburo khalaas waxa weeye mataqaanaa maraday tuuranaysaa, way xafladaynaysaa, ilmaheedii maalin walba xaafad bay uga tegaysaa, qof kale ayay uga tegaysaa. yaa kuu sheegay ilmahaada inay mataqaanaa ammaan qabaan? marka ujeeddada waxay tahay, soomaalidu waxay tirahdaa xeego see loo xigtaa ilkana u badbaadaan. macnaha waxaa loo baahan yahay in aad adiga naftaada ka fikirtid, ilmahaada ka fikirtid, qof fiican aad nolosha la wadaagtid. sidaan hore usoo sheegay, ma jiro rag wada xun, mana jiro rag wada fiican, laakiin waxaan hubaa inaad heli doontid qof kuu qalmo. gabagabadii gunaanadkii waxaan leeyahay, haddii ay ka fursan weyso, bal xaajigii hore ha lala hadlo, ilmaha aabbahooda loo soo celiyo. waa xalka ugu dhow oo ugu fiican. laakiin mararka qaarkood waxaa dhici karta inuu dhibaato weyn kuu geystay, qalbigaada dhaawacay, in labadii qof ay kala jeesteen oo isu soo laabasho jirin. markaas ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu ku ogolaaday inaad noloshaada ku raaxaysatid oo aad la wadaagtid qof kale oo aad ku qanacsan tahay. laakiin mar walba waa inaad ka fikirtaa ilmahaada. waa inaadan ka fikirin adiga dadka kale inaad iska dhistid, inaad mataqaanaa aroos dhigatid, heblaayo mataqaanaa garoob ma ahan. waxaas waxaa kaaga qiimo weyn, ilmahaada ayaa kaaga qiimo weyn. maanta waa calool xumo inaad la noolaatid ilmahaadii oo la fara xumeeyey. waa calool xumo inaad maqashid gabadhaadii oo lagu xadgudbay, oo weli ku xadgudbay qofkii aad adiga dadka ka dooratay. adigaa u keentay ilmahani, ilaan ma aqoonin, moogta adaa guriga u soo gelisay, mas-uuliyadda adaa qaadanaysid. saas darteed waxaan leeyahay walaalaha meel kasta ay joogaan inay faajignaadaan. raggana waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada, oo ilaahay subxaana watacaala uga cabsada xaasaskiina, oo ilaahay subxaana watacaala uga cabsada ilmahan yaryar ee mataqaanaa mas-uuliyaddiina gacantiina ku jira. waa wax aad iyo aad looga yaqiiqsoodo, waa wax aad iyo aad looga murugoodo, loogana gubto in aan maqalno wararka noocan oo kale ah. waxaan kaloo ku baraarujinayaa meelaha ay mataqaanaa arrimaha noocan oo kale ka dhacaan in la gaarsiiyo, inaan dhibaatada la qarinin. annagu soomaali haddaan nahay waxbaa la qariya, waxbaa la asasturaa, waa xaalu mastuur baa la yidhahdaa. waxaasoo dhan waxaa la rabaa in aan ka gudubno oo arrintaani mataqaanaa laga aamusin. qof walba oo kelmad dadka ku dhexlayna uu ka hadlo, dumarkuna ay ka hadlaan. sidaas haddii la sameeyo waxaan xallin karnaa dhibaatada, ayaan ka hortegi karnaa. waxaan kaloo ku baaqayaa qofkii isku arkaa calaamada noocaas oo kale inuu ilmaha hunguriyeysto ama dhibaato haysato, waa xanuun weeye, waad xanuunsan tahay, waxaad yeelaysaa dhakhtar raadso, caafimaad raadso, talooyin raadso. dadka waa la caawiyaa, waa lala hadlaa, dhakhaatiirta u tagaan. ilaahi subxaana watacaala waxaan ka baryaa inuu awlaada noo xifdiyo. ilaahi subxaana watacaala waxaan ka baryaa qof walba inuu siiyo farxad iyo wuxuu ku farxo. ilaahi subxaana watacaala waxaan ka baryaa qof walba wuxuu jecel yahay inuu waafajiyo. walaalkiina asra cadceedoodin leh. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.